أوصيكم وإياي بتقوى الله أيها الإخوان. أنا نفتي إذا يدينك بوحان ينفرها يا إلهي عبسديسة دا عد إلهي ما دام ضد مسلنا أيمال السوق إمادان واجب وحوية إني إسفران إلهي عبسديسة مركا هوري مركا انتهينا بوحان إسفرينا عبسد إلهي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن هذا الكيكوب بلابي وحن سود ويننا محمد أحمد صالح أو مستقبل كمدحوينها الصومالية وحن كسود ويننا كدريا وفتي لسعودي السجا وحن له سود وهذا هذا نشر في ترمانتين أنه قلت هذا من يابلس وهذا مدشن قروح بدن أربطان إنك كشيكتان madaxweynenimada Mr. Saalax marka inta waxaan ku darayaa Soomaaliya saad ogtiin waxyaabo badan baa inoo yaala waxa abaaraha jira xukun xumaa jirta corruption baa jira waxa jira waxyaabo aad u badan oo dhac baa jira qaxootinimo wax walba iyo dhibaatada dadka ka haysta diaspora waxaan filaynaa in engineer Saalax uu arinta ka saari karo Soomaalida waana ugu ducaynaynaa inuu ka saaro waxaan rabaa inaan kalo halkan uga mahadnaqo dadka halka yimi oo soo sharifay engineerka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan intaa ku darayaa engineerku meel baanu ka wada nimi bari buu ka yimi marka dad badan oo reer bari buu dhiirinimo gelinay inay madaxweynenimada isu sharaxaan intaan anu kale xusuusnaa wax madaxweyne isu sharaxay Soomaaliya meel kasta ha noqotee oo reer bari isaga ugu horeeya marka waxaan leenahay geesi baa tahay soo dhawow. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka oo marka labaad waxaan u hambalyeeyaa musharaxa madaxweyne Maxamed Saalax musharaxa cusub madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliyeed baan u hambalyeeyaa waxaan ku dhiiri gelinayaa tix aan soo tiriyay tixdaas oo aan u bixiyay oo ku baraarujinayo tixdaasi waxa weeyaan duco waana dhiiri gelin mid kalena waa idin sheegayaa sidii waddanku u burburay horta suugaantii waa burburtay waa la bilil qaystay maxamuud cabdilaahi sangu baa la weydiiyey waa tii dalka riwaayado badani ka jireen abwaaniinta uu ka mid ahaa abwaan weyn oo caan u ahaa marka wuxuu yidhi 20 kaloo riwaayad baa laga bilil qaystay markii waddanku burburay hadeeda higaada suugaanta habkeeda sidii hadraawi waa jiifto maansadani hadeeda higaada suugaanta habkeeda hanaanka la qaadiyo hal abuur curintiisa maansada ku hilowga rag baa u hanuunsanoo hibooyin u haystay hareer qaba maaha habkiiyo curinteeda adaan u hiloobinoo halkay higsanaysiiyo hoggeeda ku toosin hadaaqu ma fiicna hawaawir kacbaan hadroolladii waayo hal abuurka ku muujee higaadda dhegaysta dalkeenna habsaamay dadkiisa hagaasay nabadda ka huleeshay colaad hadaf beeshay dulmiga ka haluuqan abaarta ku heelan calankeenna hankaagay qabiilka halowshay qabiilka halowshay siyaasad halaagsan wadaad xumo haysta moryaanka hubkiisa qaxootiga huursan hareeraha dunida shisheeyaha hooy leh muwaadin hujuumi hooyooyin caruur leh ninkii kula haybshay baadida ka halowday inaad hesho diidi abwaana ku heesoo suugaantu haraadee xaggay ka halowday haddaad doctor maxamed madaxweyne hagaagsan iyo horseed u ahaato hambada lagu dhaliyo habqankii waddankeenna adoo hilowgaagu tacliin ku hegayo nabadda u horraysay gaashaandhigu heegan jahliga ka hofaaya siday u harbeeshay siday u hungowday siday u huweyday siday u hankaagtay siday u harraaday siday u hayaantay dhulkeenna la hiifay baddeenna hujuuman
horarkaa gadanaya ee dantiisa u heelan haddaa doctor maxamed madaxweyne hagaagsan iyo horseed u ahaato hambada lagu dhaliya habqankii waddankeenna adoo hilowgaagu tacliin ku hagaayo ducaan ku hibay xaqaa hirka fuulay kitaabka habaasmay shareecada hiila cadaaladda haaday mugdiga ku hadhaysan haddaad ka hufayso ducaan ku hibeey hodan weeye dalkeennu habeen madow joogee macdantaa hirqanaysa baatroolka humbuuca yuraaniyan huursan cilmigii hubin laha iyo maskaxdii helilaydna hoobiya isla dhacayso adoo hilowgaagu tacliin ku hagaayo horuu marinayo wixii la halowshay ducaan ku hibeey adduunyadan heelan casrigu ka hadlaayo hubinta dayaxa iyo hawada sahan aaday hayweyga la fuulay ninkii ka hadhaayee jahligii mar horeetiyo anaa hebelaysi qabiil hurinaya habaaru sugnaaye haddaad doctor maxamed madaxweyne hagaagsan iyo horseed u ahaato hambada lagu dheeliya habqankii waddankeenna adoo hilowgaagu tacliin ku hagaayo ducaan ku hibay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ahaan baynu ku soo dhoweynaynaa rag iyo dumarba waxaan leenahay walaalayaal waa ku mahadsantihiin sida aad uga soo qayb gasheen xafladdan maanta waxaan u malaynayaa waa ramadaan waqtigu waxaan u malaynayaa maalmahan kulayl baynu ku jirnay laakiin qabow buu isu bedelay alxamdulilah maxamed siduu noogu yimi insha allah qabowga baa yimi qabowga isagana qabow allah allahay qabowga meel khayr leh oo khayr qabta oo qabow allaha geeyo isagana wuxuu doonayo waxa waaye madaxweynimo soomaaliya inuu hogaamiyo soomaaliya hoggaankeedii waxaan u malaynayaa ayaantan ama sanooyinkan ama waayahan sida uu noqday waa u jeednaa wax badan baayna ka dhumay si lagu soo celiyo mararka qaarkood goortaa fiiriso waxaad is leedahay talow meeshiiba lagu soo noqon karaaya noloshii sidiiba u soo noqonaysaa nabaddii sidiiba u soo noqonaysaa dalkii sidiiba u soo noqonayaa dadkii sidiiba u soo noqonayaa duunyadii sidiiba u soo noqonaysaa wax walba waxaad is leedahay markaad dhinac walba ka fiiriso walayaal wax ma soo noqon doonaanin waxaan rajaynaynaa haddaayo brofesorku wuxuu yidhi nin beri ka yimaado oo madaxweyne isu sharaxa maxamed saalax baa wari waa runtiis moogta aada iyo aada waa runtii marka waxaan leeyahay qolyaha soomaalida ah oo ay walaalahaya wax naga dhexeeyaanu haddii maanta uu noo soo baxay maxamed saalax aan taageerno yaakhe bilaahi caleyki nagu taageera wax badan baanu maaragtay mudug iyo xamar iyo meelo kaleeto iyo yaa dhul kalea la siin jiray bilaahi calaykum maanta na siiyay baashi nagu daya bal annagana waxaan iska tixraacayaa brofesorka hadalkiisii baan tixraacayaa waxbaan dib u gocday oo waxaan fiiriyay meel walba waa eegayo maanta keliyaanu waa ugu horreynaaba war maxamedow dadaal annaguna waa kula dadaalaynaa intii tabartii ah waxaanu kula qaban karno waa kula qabanaynaa marka waxaan leeyahay rag iyo dumarba waa ramadaan baynu ku jirnaa ilaahay ramadaanka hayna ka aqbalo ilaahay ramadaanka hayna ka aqbalo ilaahay dhulkeenni nabad ha ka yeelo ilaahay dhibaataynu ku jirnaa shidada qabow allah inoo ku bedelo maxamed saalax kii ina hogaamiyo khayr ilaahay inoo ka dhigo allah ka dhigo ilaahay khayr inoo ka dhigo ilaahay saasaanu ka baryaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo gobolkan aada looga yaqaanayo soomaaliyaba fadlan ila soo dhaweeyey maxamed cabdiqaac ramadaan kariim ilaahay subxaanahu wa tacaala bishan barakaysan aynu ku jiro khayraadkeeda haynu ku anfaco maxamed waxaan ku leenahay waxaad qaadatay xil weyn waxaan qabaa inaad u bareedhay arrintan maanta soomaaliya cakiran inaad hoggaano noqotid waxaad u bareedhay inaad rag ka soo baxdid oo aad adigu noqotid halyeygii soomaaliya maanta
nabadgelyadeedii iyo xasiloonadeedii iyo dadnimadeeda soo celin lahaa soo dhow baa ku leeyahay xilkaa aada u bareedhay xil hawlyar maaha mararka qaarkood waxaan is idhahdaa war bal yaa meeshan ciddii u dhaqaaqi lahayd oo maanta soomaaliya wixii ay kala gaadhay iyo dhibaatada ay ku sugan tahay bal yaa maanta samata bixin kara marba baan cidba waayaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hadda adigu maanta noo soo baxday raggii ugu horreeyay baan taageerayaa gobolka aan ka nimi waxaa tahay ninkii ugu horreeyey oo u soo baxay waanu ku garab taagannahay hiil iyo hooba waa kula garab taagannahay hadalka badin maayo ramadaan baa lagu jiraa maxamed waxaan ku leenahay ilaahay subxaanahu watacaala kuu guulaysiiyo hana isdiibin rag iyo rabbi iyo rag bau haysataa sanadkan dadaal waanu ku garab taagannahay gacan baanu ku siinaynaa adigo naftaadu maxaan ku leedaa dadaal dheeraada muuji soo dhow baanu ku leenahay garabkaaga gablaha galo ilaahay hana kuu guulayo inuu maxaa noqdo madaxweynihii soomaaliya samata bixin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsan tahay markan dhinaca haweenka ayaa u leexanayaa dareenka bulshada iyo xilligii ay dhibaatadu jirtay marka haweenku waxa ay ka qayb qaateen dhismaha dalka badbaadinta caruurta ilaalinta waayeelka isku dubaridka bulshada sidii u heli lahaayeen nolol ay ku waaraan marka kaalinta haweenka marna ma aysan bannayn intii lagu jiray burburka soomaaliya har iyo habeenna way u taagnaayeen fadlan haweenka hal mar sacaba la isiiyo idinkoo cisigeena caadilka cisiga kula doonay rabbigeena caadilka calimka adduunku calaamadaha kulule calimka adduunku calaamadaha kulule malaa'iga soo cirmaday ha ku caawiye malaa'iga soo cirmaday ha ku caawiye codkaaga iyo sawdka cilmigaaga lagugu raac maxamed hadafkiiyo nasiibkaagu ku hirgale maxamed hadafkiiyo nasiibkaagu ku hirgale waxaad higaa ka duhunayso nabad ku hano ha kugu hagaajo rabbigeena haadiga oo hila kuu siiyo malaa'igta haybadale har iyo leyliyo hareeraha kaa socdeen oo cadow ku hawaysta iyo geesi halis hagelin tallaabadaad qaaday taasheegaaga waxa ku jira tallaabadaad qaaday taasheegaaga waxa ku jira tama ku noqoto kama galo taclo talada rabbi baa haye tam ha kaaga dhigo ha kugu taageero hawshaad u taagan tahay maasha allah samahaad qaaday khayraadka lagugu sidii samahaad qaaday khayraadka lagugu sidii sama ku qaad wowdka sohowdkii lagu saxiix saldanada rabbi baa haye saami kaaga yeel saldanada rabbi baa haye saami kaaga yeel ha kugu saacido malaa'igta sharafta badan oo samow nebigeena fadligiisa sama ku qaad deeqda rabbi baa baxshay daha kaaga qaad oo deeqda rabbi baa baxshay daha kaaga qaad deraja kula doonay weligeedan kaa dibdhicin deraja kula doonay weligeedan kaa dibdhicin dadnimadaada iyo debcigaaga lagugu raac mugdi bay ku jirtaayo Soomaali waa madluul mugdi bay ku jirtaayo Soomaali waa madluul masul maamuliyo mudaanay u baahan tahay
mas-uul taliya iyo maamuul bay u baahan tahay haddii mawluhu ku yihiilo muraad ku qumo haddii mawluhu ku yihiilo muraad ku qumo oo maamulkaad hanatoho muraad ku qumo mudane dhexdhexaada waaye inaad u muuqataa banaadir community fadlan maxamed abikar ila soo dhaweeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم marka hore waxaan hambali u soo jeedinayaa guddiga qabanqaabada oo isugu yeeray dadka oo barnaamijkan quruxda badan iyo qaabkan kulli u habeeyay waxaan u jeedinayaa hambalyo ta kale waxaan u hambaleynayaa dadkii ka soo qayb galay oo ajiibay imaatinka iyo ciddii casuntayba aniga as a community leader ahaan waxay ii tahay sharaf inaan ka soo qayb galo munaasabad lagu soo dhaweynayo qof candidate ah u sharaxan madaxweyne qarankeena Soomaaliyeed marka aad iyo aad ayuu qaranka ugu baahan yahay qof leadership fiican oo wadanka hogaamiya engineer Maxamed Axmed Saalax waxaan ku leeyahay ku soo dhawow Minnesota annaga weligean bacaada ayaynu leenahay inaynu soo dhaweyno qof kasta oo musharaxa ka qayb galaya ama kaalin weyn ka qaadanaya qaranka dib u dhiskiisa marka waxaan ka codsanaynaa inaad kaalin weyn ka qaadato dib u dhiska aad khibrad ka qaadato waxa uu soo maray 21 sano hadda la soo dhaafay aad ku dadaasho saad u cover gareyn lahayd problemski jiray waxyaalihii jiray oo kul dhan markan soo socotana waxaan moodayaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore u dhici jiray iyo systemkii hore systemkii hore baarlamaanka hore waxaa ku jireen dad warlord ah dad suuqa laga keenay dad aan nidaamsanayn hadda laakiin waxaa imaan doona saan umalaynaya baarlamaanka dad aqoon-yahana ah la soo xulay quality leh iyo candidates fara badan oo ka qayb galaya iyagana doorashadii marka waa inaad maskaxdaada gelisaa inay kula tartamayaan dad kale oo aqoon-yahan ah oo aqoon badan ku leh raba iyagana inay ka qayb galaan madaxweynenimada tartankeeda marka aniga fikrad ahaan waxaan qabaa inay bataan dadka musharaxiinta ah because waxaa la helayaa choice lagu xulan lahaa kii fiican oo ku habboon inuu waddanka hogaamiyo ay dadkana arki lahaayeen waagii hore waxaan arki jirnay in hal qof kaliya la doorto xilligii berisamaadkii waxaynu arki jirnay habluuga maya huruudka hadda marka waxaan rabnaa hadda waxaynu u baahannahay marka kee ina anfaca waxna taraya oo waddanka wax u qabanayo hogaaminaya marka waa muhiim in la helo qof waddanka marka mustaqbalkiisa majaraha u qabta hoggaanka u qabta toosiya ummadda isku keena khilaafka xalliya wax walbaba hagaajiya ayaa loo baahan yahay marka meeshaas ayaa lagu kala xulanayaa qof walba waxaa la yiraahdaa marka qof walba waxaanu dhahaynaa haati burhaanag la soo bax hawshaadi waxaad hayso mar labaad waxaan ku leeyahay injineere ku soo dhawow stateka Minnesota السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هذه لا هاي بيسكله ضد كبدن أو شرفت بدن أو حفلات ده اللي جسور دوين أيوه إنجندير محمد أحمد صالح أو أشرحن مدحوينها فدر الكصومالية إيانا شرفت اللي بعد بيلي وأنا مهتسيه أنت كبعدي وح هذا الكوسكية كوبي هاي أموي هاي أنت رجع هريري إن هوش اللجا وضم أنت صوماليا كصوتا مد غبو معها وأنا وده أجنهي لبعض سنوات يدارات طلبر برسنا وعليس يدبات سيفو ليس مالين والبمان تقدم بيسا
oo aynu ognahay dhibaatada taal ragga u badheeraya waa geesiin baan leeyahay anigu rag ka soo baxay oo weliba aan hadda dhibaato wado oo ay isleeyihiin muxuu ahaa kaga baxa ragga dibadaha ka tegaya oo aqoontana leh muddana ka shaqaysanayay dhulka kan lana qabsaday hadday maanta ka dhaqmadeen rag badan oo dee horena halka waa ku soo dhaweynay injineer maxamed axmed saalax oo caawa aynu halkan xafladda ugu hayno oo aynu una ducaynayno kuna taageerayno inuu ka qayb galo ama ilaahay ku guuleeyo haddii uu ay khayr u tahay dalka iyo isagaba inuu madaxweynaha Soomaaliya noqdo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa marka waxa la yiri martidu reerka marka hore ka naxa marka dambena iyada kala naxda marka ay farabadato reerka hareerihiisa buuxso dad badan yimaadaan dad badan baa tagay meesha ka horeeya kuwa kalena waa aan halka ku soo dhaweyno kuwa kalena waa iman doonaan baan u malaynayaa dhul badanna waa ka tageen meeshaad isugu tagi doontaan nin walba waxa lagu qiimeyn doonaa hadeer Soomaaliya garadkeedii isimadeedii aqoon-yahankeedii intii wax la bidaayay waxay isugu tageen xamar kulla walba waxay noqon doontaa qiimo in loo jaraa ninka meesha tegayo oo la eego iyaguna ay ka qayb qaataan isimada iyo wax garadka iyo dadka Soomaali doonaya in loo heeliyo وانا kala bixi doonaan raggaas isu wanaan maayaan wax la yeeso mal baraaru ma eka ma taqaanidaha marka nayluhu dhashaan dadka reer miyiga aba yaqaane neefka sumalka noqonaya naylaha sidaas uga baxa waa muuqda marka ninka noqon doon dhigo Soomaalina ka saara silca iyo hooga iyo mushkulada gaadhay dad badan baa meesha jira waana muuqan doonaa waxaanu leenahay khayr hadday inoo tahay isagana ay u tahay Soomaalina ay u tahay ilaahay ku guuleeyo maxamed axmed saalax jagada weyn oo Soomaali ugu sareysa oo la doonayo in lagaga saaro dhibaatada maanta haysata xuntiga kala cararka qaaradaha laga dhacay dhibta inta joogta Soomaaliya haysata niyo xumada ku dhacday ilaahay ha ku guuleeyo jagadaas weyn baanu leenahay waa ku ducaynaynaa usnaha u guntado anna kulligeen dhiraana khayr hadday u tahay aamiin dhahaya ilaahay inuu ku guuleeyo ilaahay saasaynu ka baryaynaa dalkana ay khayr u tahay intaasaan hadalkayga ku soo gaabinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh islow fadlan ila soo dhaweeya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed jaaliyada Soomaaliyeed ku nool gobolka Minnesota always waxaan caado u leenahay qof kasto Soomaaliyeed ama ha ordo musharax ama ha u yimaado marti asagoo ah maxaa la yiraahdaa qof Soomaali hore oo madax uga ahaa ama hadda ka ah ama markaas musharaxa waxa always ay caadaynu tahay inaan soo dhaweyno oo aan iraahno welcome ku soo dhawow marka galabta waxaan halkan isugu nimid inaan taageerno injineer maxamed axmed saalax oo isu soo sharxay presidentaha Soomaaliya hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo carabtu waxay dhahdaa laa shukra cala alwaajib annaga waajib waxaan uga ah inaan ahno walaalow welcome soo dhawow jaaliyada Soomaalida ku nool Minnesota haddaan nahay haddii ilaahay kuugu talagalo kursigan koleyto dad badan baa u tartamayo
oo ilaahay calafkaaga ka dhigo waxaan leeyahay midkii aad hadduu ilaahay yidhaahdo khayr u noqdo soomaalida adigana khayr kuu noqdo haddii uu ilaahay kuugu talagelinna wax ka khayr badan ilaahay kuugu bedelo soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waas aad iyo aad baad u mahadsan tahay markan waxaan u gudbayaa dhinaca aqoon-yahanada caawa isimadii iyo nabadoonnadii iyo hablihii ayaa socday wiil dhallinyaraha soomaaliyeed oo ka mida dhallinyarada jaaliyadda qurba joogta ah waa Torabi Jaamac waxa uuna ka socdaa Executive Director and Gateway Institute Development waxa uuna ka mid yahay dhallinyarada aad ula talisa dhallinyarada iyo dhinaca xagjirnimada loo wado oo ka qayb qaata dagaalada sokeeye ee Soomaaliya fadlan Torabi Jaamac ku soo dhaw ayaan ku leeyahay dhammaantiin ila soo dhaweeya Torabi Jaamac oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed السلام عليكم وهذا سلامي waxaan ka cudur daaranayaa aqoonta uu walaalkeen sheegay hada aqoon hadii la yiraahdo qof level bay u maraysaa waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen sharax injineer maxamed axmed saalax aad baan ugu faraxsanahay caawin aan ka soo qayb galo waxaan dhamaanteen aan wada ognahay xaaladda Soomaaliya meesha ay marayso isagama sheekaynayno waxa la waayeel waa kuma waxa la anagu ay siilyeeleen bas anagu ay siilyeelayna maamaha qof sibu maarto u yaqaana anigu wadanka dirtaan aan ka imid Puntland waa tagay Muqdisho waa tagay ilaa 2 bilood waa soo adigu bil barbar hadda soo moogahay waana garan karaa runtii dhibka maarto Soomaaliya haystay waxa aan ku soo arkay Soomaaliya hadda waxay maraysaa xaalad la dhihi karo cidna uma maqna ceelna uma qabna waliyaana wadamadan joognana waaba carababnaa waxaan raanaa Soomaaliya waxay taagan tahay crossroad ama meel maartay laba wado oo isjaraysa qolo walbana hadee dadkeeda iyo dhalinyaradeeda iyo aqoonyahankeeda iyo siyaasiyiinteeda iyo odayadeeda unbay ama ku baxsadaan ama ay la baabaadaan meelahan markaan joogna hadda waxaad moodaa last 20 sano ugu dambeysay xaaladda Soomaaliya marba meel bay maraysay hadda waxaa moodaa layr yar baa ifaya waxaan raanaa wasiir dalayd aan dadtan in uu muuqdo iftiin yar oo la leeyahay warba iftiinkaas hal higsado ama maarta hal gaaro haddaan si kale u yiraahdo waxaad moodaa in la soo gaaro xilligii la lahaa move on.com wadamadeena dadka joogna waxaan naqaanaa in dhibka hadii uu dhaco laga gudbo laga tanaasulo la isaga maartay laga wada hadlo la iscafiyo laakiin waxaad moodaa wadankii in arintaas aad u dahday 20 sano inay soo wareegatay timekii hadda la soo gaaray la dhii lahaa let's move on Soomaaliya dhibkeeda dib aynu u dhigno waji cusub aynu furno ninba hadda ka hor wuxuu yiri ninba hadda ka hor wuxuu ka sheekeynaa ninka reebaadiye geel jiraha wuxuu yiri qofka geel jiraha gacantiisa kor looma dhaqay hoos baa loo dhaqaa anigu marka aad bay ugu adkaad maamada inaan fahmo waa weydiiyay maxaa loola jeedaa wuxuu qofka reebaadiye haduu geel yahay allaagda qofka looda dhaqda ama ariga dhaqda ama beeraha alaba dabiici waxba helaan qofka haduu geel yahay muddo markuu joogo ama bil baabi ugu horeysa marka hadii inta raashin loogu yeerlayo gacanta saaha loo dhaqo hadda wasaqdi hoos bay aadaysa laakiin sida ay loo dhaqo u baahan tahay marka Soomaaliya arinteedii waxay u baahan tahay in si hoos loo dhaqo oo aan dib loo eegin maxaa dhacay dhibka Soomaaliya gaaray ninba maalin bay u joogtaa ninba shalay taabatay ninba darra taabatay ninba civil war ka taabatay qaar baa maxaan ku iraahdaa 88kii guryahoodii iyo beerooda la baabi'iyay dad baa maxaan ku iraahdaa dawladdu ugu markay bixisay guryahooda la baabi'iyay dad baa maxaan ku iraahdaa ishaq diyaarada la dhacay dad baa baraagahooda la gubay marka Soomaaliya dhibkeedu 30 sano 40 sano baa dib loo raacaya waana adagta in la isku waafaqo waxa muhiim ah in sida wadamada Rwanda ka dhacay oo kale Liberia ka dhacay oo kale South Africa ka dhacay oo kale inta lagu cibro qaato lagu waana qaato la iscafiyo dan hore looga socdo laakiin meesheeda aan la taagnaan waxaan kaliya aan ku dari lahaa hadda waa aragtay Liberia gabar baa qabatay PhD holder ah wadanka samata bixisay Rwanda waa aragteen hadda meesha la yiraahdo AU da waa aragteen gabar kale haween baa qabatay
أنا هذا الرجال بقى واحد لا الصومال أرمي مسوق قالت حلي قبل اللي تجابين لها لكن ولي وحمد الرجو إنس ولي الرجو مقوصا ولي الرجي بتاجن أنا جاي جيل كي حتى ولي الرجال مالي محل دلنا يرانا لكتريا دلنا يرانا الصومالنا كنت وحي كهوس يوا ولي الرجي وينابا ولي إسقاط يستون برناين وان ككرلان وردر كدكت مركينا واقعدتين مرك أد بانقول فرح سنة هاي إنجنيرك inuu na dhiirageliyo oo yiraahdo war arinta Soomaaliya waa geynaa haddaan aqoon-yahannahay ninbaa beri waxaa laga sheegay meel tala ayadoo loo fadhiyo baa odayaal la soocay kasoo hadda aanun antahay odayaal aanan ahayn waan odayada ka soo horjeedin odayadu meel bay wax soo gaarsiiyeen laakiin waxaa la rabaa next jiil inay gudbaan waxaa la yidhi garbaa la soocayo ninkaas markii arrimo la isku soo hadal qaaday oo arkay dhalinyarada inay isku jiro wuxuu yidhi war haddee waxgarad ha la sooco marka waa loo baahan yahay rag iyo dumar labadaba kastoo kelimada ragga afka isaga baratay rag iyo dumarba arintan Soomaali u guntada meesha ay joogto ka qaada oo geeya meel maxaan ku iraahdaa muhiim umadana la mid ayaa jira hadda marka South Africa aragtida oo kale Nelson Mandela wato u kacay Hindiya oo kale Gandhi waa u kacay Mareykanka ninkii maarta brotherka Martin Luther King waa u kacay waa inta Soomaali Israel 40 sano ka hor bay ahayd in dhiigii la beero oo dib loogu laabto oo dad cusub la soo saaro rag iyo dumarba waa laga maarmaan waxaan u mahadinayaa injineerka dhiiranimada iyo geesinimada uu maartay la soo istaagay dad badan waa jiraan waa sax waa la sheegay one of those candidate uu ka mid yahay waana rajaynaynaa in maartay dadka isagoo kale ay ku soo bataan saacada siyaasadda iyo majaalka siyaasadda iyo fadhiyada siyaasadda si loogu gudbo waji cusub waxaan rabaa inaan taabto arrinta siyaasadda waa iska nin baa ka hor siyaasadda wax laga weydiiyay wuxuu yiri politics is the art of the possibilities siyaasaddu wax meel taagan ma aha waa wax rogma waa wax hadba mar jiifta waa marba siba u egtahay magacyo badan bay leedahay wajiyo badan bay yeelataa marka waxaan rabnaa qofka siyaasiga ah in uu laftigiisa flexibility badan muujiyo jajabnaan badan muujiyo dadka ku dhex jiro uu og yahay maarta xaaladaha maanta la isku hayo arinta ugu dambaysa aan ka hadlay waa arinta UN hadda ay soo saartay oo UN Monitoring Group loo baxshay waa 198 page si dayal ayaan loo qaadan xog badan iyo war badan baa meesha lagu soo aruuriyay Soomaaliya lacagteedii literally waa la dhacay dad baa musuqmaasuq ku sheegay anuu musuqmaasuq ma yiraahdo waa luurin dhab ah oo daytime dhacay oo nina loogu aabayeelin musuqmaasuq waxa la dhihi karaa qofka markuu inta 80% uu hagaajiyo 20 ka bixbixido oo waraaqo iyo document waxay yaalaan laakiin day cad oo xooli ummadda la boobay oo internationalki anagu markaynu isfarfiiqin international soo kala dhaxgalay oo document oo record oo maartay evidence-ga ay caddahay yes dadkeena North America ku kor ama dunida horumartay jooga waxaan naqaan wax la yiraahdo qof walba waa innocent until proven guilty صح qof walba waa dambi laawe ilaa maxkamad ay cadayso laakiin documentiga meesha yaala yaana la dayalsan waxaan ku soo afmeerayaa hadalkayga qoliyaha UN-ka waa inay galaan investigation dhab ah arinta laga sal gaaro dadka Soomaaliyeed aan mar labaad la hodin meeshan training ma aha waa xafiiska ugu sareeya maarta ii sheeg dowladnimada iyo qaranka Soomaaliyeed qof aan weligiis la soo tijaabin oo jeeg ugu horeeya madaxweynaha ka bilowda warawana siida dadka aqoonta leh oo soo dadaalay oo injineeriinta leh oo dhakhtarta leh oo professorada leh oo Soomaali ma gablamin dad bay leedahay dadka ila tijaabiyo oo waqtigooda la siiyay taas aan kaga soo ku soo afmeeraya waxaan u dardaarmayaa walaalkeen musharax injineer Maxamed Axmed Saalax waxaan leeyahay musharax soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad inkastoo ay inaan ku bilaabo laakiin aan ka tagay oo hilmaamay ilaahay hadda garas dadka meesha jooga dhamaan wada aqoonyaankii iyo siyaasiyiintii iyo odayadeennii iyo dadkii magaalada maartay nagu hayay anuu magaalada ilaa 15 sano ayaan deganahay kolay marna hadal uma soo istaagin qorayskaaga aan qaadi waayay hadda marka indhaha aan eegana waxaan war dadkii 20 sano la soo dhaafay idin hogaaminaya joogaysa u hadli doontaa maanta waaba lagu dhagaya waxaan kaliya kaaga dardaarmayaa arinta inaan la dhayalsan adiga reer kale candidate-ka ah inaa wax ka tiraahdaan iska aragtaan turxaan bixisaan wixii ilaahay idin la og yahay oo sax ahna aad sheegtaan arinta dumarka ah dastuurka waxaa ku qoran 30% inay haween noqdaan arinta waa kaala dardaarmaya in la xoojiyo
loona afartay gelin waad mahadsantihiin mudanayaal iyo marwooyin xafladan qaaliga ahayd maanta kasoo qayb gasheen soo dhoweynta musharaxa madaxweynenimo maxamed waxa uu soo galay socod dheer ilaa magaalada boosaaso ilaa halkan waxa uu soo socday bal inuu arko dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda qurbo joogta ee gobolka Minnesota waxa ay noqotay meesha kaliya haatan ee awood ku yeelatay siyaasadda Soomaaliya marka dadka reer Minnesota waxaan leeyahay congratulations Soomaaliya awood badan baa ku yeelateen waxaa laydinka rabaa kaliya inaa midoodaan wax kale laydinkama rabo waa Soomaaliya gacanta ku qabataan maanta Soomaaliya Minnesota ayay u fadhidaa marka dadka reer Minnesota gacan bira waa inay Soomaaliya ku qabtaan ayagoo midaysan aad iyo aad baad u mahadsantihiin markan waxaan rabaa aqoonyahan Soomaaliyeed oo halkan nala jooga Maxamed Xasan oo loogu yeero Abgaalo oo ah Somali Parents Association fadlan ila soo dhaweeya salaan ta waxaan ku xujinayaa salaantaan idin salaamay si islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka adiga oo gabay baa jiray waana haynin baan u maleynaya adoon waxba haynin marka lagu qabto waxa gabayga uu ku jiray nin waa guulguulataa dhinacyada eegtaa baa lii marka waa Minnesota horta bal waxaad qaadataan hadaa reer Minnesota tihiin tixgelinta gaarka ah ee aad u weyn ee qof kastaba uu niyeystayba haddii aadan Minnesota lagaga sacabtumin meel gaari mayso bal horta taasaad haysataane idinkuna waxaad ku dartaan inay intaa isu tagtaan aad waddankanna wax ka soo saartaan waa ka soo saari kartaan talabaad waxaa injineere waxaanu caan ku nahay cid walba dhabarkaanu ka dhirbaaxnaa dhowr habeen oo ka horeysay mid baan halkan dhabarka ka dhirbaaxay adigana caawa dhabarkan kaa dhirbaaxayna ma aha mataqaanaa munaafaqanimo nagama aha waxa weeye haddii wax lagu soo moodo oo laydin yimaado la yidhaha war marti baanu idiin nahay waxbaan idinka rabnaa haddaadan foodka ku ridi karin soo dhoweynta ugu roonaada markaa kal iyo laaba waxaan ku leenahay ku soo dhawow Minnesota waxaan ku leenahay mataqaanaa Allah kugu guuleeyay idan Allah haddii aad bari baan waxaan ku yidhi daytankan baanu governorka baanu duluth isugu nimid markaasaan kaarkayga u dhiibay markaasaan waxaan ku weydiiyay waad helaysaa meesha haddaad heshid one day organizationka iyaga ma u noqonaysaa ma taqaanaa one day volunteer ma u noqonaysaa ma ka shaqaynaysaa war ma haleelaya iga tag buu yidhi maalinta baan arka waxaan idhi ahlan wasahlan runtaas sheegtay waa kugu raacay marka waxa weeye haddii aad ku guulaysato dal aan waxba jirin baad u tegaysaa u xidhiidho والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka waxaan u yeerayaa Xuseen Samatar oo kamid ah jaaliyadda Soomaalida qurbo joogta dhinaca waxbarashada nooga ah dad committee-ga fadlan Xuseen Samatar ila soo dhaweeyo عليكم الرحمة habeen wanaagsan maalin wanaagsan marka ugu horeysa waxa mahad leh dhamaan inteenaan anagoo caafimaad qabna sooman inaan isu nimid midda labaad guddiga soo qaban qaabiyay shirka quruxda badan haweenka akhyaarta dadka magaalada laga rabo inay wax ka yiraahdaan inay isugu yimaadeen waad mahadsantihiin dhammaantiin kulligiinba marka ugu horeysa aniga hadal badan ma oranayo waxaan hadalkayga ku koobayaa 3 arrimood waxaa hadalkii dhameeyay ninkii ahaa Maxamed Axmed waxa uu yiri qof kasta oo Soomaaliyeed oo doonaya in uu dalka Soomaaliyeed madaxweyne ka noqdo marka uu yimaado Minnesota dhabarkan ka taabanaa sidaas darteed injineer Maxamed Axmed Saalax asagana dhabarkan ka taabanayna haddii aniga la weydiin lahaa si gaara waana idiin sheegaya sababta aan u yiri gabadha in la doorto ayay tahay marka ugu horeysa 20 sano ugu dambeeyay oo dagaaladina nagu dhaceen waxaan ognahay oo runta haddii aan isu sheegnay inay tahay dadka lacagta dira carruurta haya abaabula buraanbura guurow iyo wax kasta oo la sameyn jiray maxaa la yiraahdaa imaamkan waa fadhiya oo koonfur iyo min laga sameyn jiray gabdhaha Soomaaliyeed
ayaa hadda sameeya waqtigan joogno waxaa kaloo jirta dadkeena gobolka degan oo muddo dheer deganaa inay og yihiin dadka wax barta oo hore u maray inay gabdhaha Soomaaliyeed yihiin oo wiilashaan rabno in ay ka qayb galaan marka maadaama ay lacagtii aan ku dhaqaaqaynay iyo aqoontii iyo dadnimadii ay leeyihiin marka waxaan jeclaan lahaa inay noqdaan maadaama marka aysan jirin haddii aysan jirin oo caawan Maxamed Axmed uu hor taagan yahay waxa ay tahay sidaan rabnay haddii laga waayo sidii laga badin waayo inaan yeelno marka arrintan aan u soo gudbo midda Maxamed aan u soo gudbo marka arrimaha Soomaaliyeed dhammaantiin waa wada ogtiin waxa ka socda iyo waxa jira marka waxaan rabaa kaliya inaan ka iraahdo arrinta Maxamed sidaan soo socota marka ugu horeysa aniga waxaan ahay reer Kismaayo haddii aan oran lahaa waxaan ka imid gobolka la yiraahdo Boosaaso ama Bari dadka jooga way xuleen Xuseen oo goorma ba aragtay Boosaaso oo aad sheeganaysa marka aniga kama tirsan Boosaaso mana sheeganayo warda waxaan rabaa inay taas ogaataan waxaan reer Kismaayo laakiin waxaan se ku faraxsanahay oo weligay aanan arkin intaan dunida aan joogay oo weli aanan arkin qof Bari ka yimid oo oranaya anigana waa ikan madaxweynaha rabaa inaan noqdo horta taas waa ku faraxsanahay waxaan u soo taagnaa maaha iyadoo waa ku faraxsanahay oo dadka wada ordaya in ay uu ka qayb galo midda xigta waxa ay tahay arrimaha nasaaran wax caadi oo la soo koobi karo hadda maaha waxa nasaaran Soomaaliya arrimo xoog leh oo aan aqliga bini'aadanka dhaafsiisna ayaa saaran marka saddex arrimood kaliya aan ku soo koobo annaga hadda marka aanu caawa afurka marka uu yimaado oo ilaa 40 daqiiqadood kadib waxa markaan u yarnahay ilaa 3 raashin oo kala duwan ayaan cunaynaa dad annaga la mid ah oo Soomaaliyeed oo aanan waxba ku kala duwanayn oo laga yaabo beelaha aan tirsanayno inay dhammaantood ka wada tirsan yihiin oo 1 milyan dhaafay ayaa waxay fadhiyaan xero qaxooti oo 1 milyan dhaafay bini'aadanka Ilaahay oo dunida saaran wuxuu wax ku yahay inta dunida la joogo markii caaqira la tago qofku waa amalkiisa iyo waxa uu geysto marka Maxamed iyo ragga tartamaya waxaan ka rabnaa saddex arrimood inay noo sameeyaan midda ugu horeysa waxa ay tahay arrintan beenta ah oo aan dhamaanayn oo maagtay oo ah qabiilka in oorta lagu kacsado inaan ka gudubno marka ugu horeysa midda labaad oo Maxamed iyo ragga la tartami doonaan ka rabno inay sameeyaan waxa ay tahay tarabeela uu ku fogaaday in dad masaakiina oo aan lahayn wax soo saar oo aan lahayn waxay dibadda geyn karaan markii lacag la siiyo lacagta inaan laga boobin oo aan la dhicin marka waxaan ka rabnaa ragga cusub oo dalka ka talin doona inay ilaahayna ka baqaan ummadda masaakiinta ah oo Soomaaliyeed oo hadda dadka dunida ugu tabarta daran ah inay lacagta soo gasho iyadana aan laga dhicin oo aan la boobin midda saddexaad oo ugu dambaysa oo ah taageerada Maxamed ah waxa ay tahay arrinta madaxweynimada aad bay u dhib badan tahay wax sahlan maaha waagii lixdameeyadii raggii meeshan waa fadhiya waxay ahayd dal dhan oo wada karaani ah ma shaqeynayo ay ahaan jirtay dal dhan oo wada karaani ah hadda waxaan wada noqonay dal kulli raba inaan madaxweyne wada noqono marka waxaan leenahay Maxamed madaxweyne Allah nooga dhigo laakiinse haddii aan la helin wasiiro agaasimaan awaax haddii aan la helin gobolada dalka oo dhan beel walba meesha ay degan tahay inay wax ku noqoto waxa adkaanaysa marka dal madax kama dhisnaa xubno iyo awood iyo farsamo iyo xeel ayaa loo baahan yahay mid ugu dambaysa ragga dad Minnesota aniga waxaan ka tirsanahay Minneapolis Public Schools caruurta la socoshadeeda Maxamed waa nin dhalinyaro ah hadeer markuu u bato konton jira kuwa halkan ku dhalanaya yaa waxaan bari ka rabnaa inay governorka Dayton sida uu yeeray inay noqdaan waxaan ka rabnaa Obama oo kale inay ka noqdaan dalka aan ka degannahay oo halka aan joogno sida darteed hadalka waxaan ku soo koobayaa gabdhaha Soomaaliyeed igama aha inaan amaanayo caruurta way la socdaan gacanta ay ku hayaan waxay cuneen homework ay qabteen iyo halkay joogaan marka ragga Soomaaliyeed arrinta maadaama aan fursad helay inaan ku hadlo ragga Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa caruurtaas yar yar oo aad mas'uulka ka tihiin inaad daba socotaan aadna ogaataan waxa ay noqonayaan idinka ay idinku xiran tahay kubadan hebel wata iyo hebel ma wato waa iska dhamaanaysaa ragga Maxamed oo kale markay madaxweyne dalka ka noqdaan assalaamu calaykum waraxma bismillaahi raxmaani raxiim walaal waa idin wada salaamo dhammaantiin mudane ali marwooyin meeshaan wax yar oo waxaan ka tirinayaa baraambura oo ugu tala galay walaalkay iyo soo dhaweyntiisa
calanka Soomaaliyeed oo cirshiga ka nuur calanka Soomaaliyeed oo cirshiga ka nuur cirkaad u eg tahay Rabbi yow laga cabsado kuwii ku caawimi lahaa kama caajisaan anagu kugu ceeshnay caruurteena kugu cayile allow saacadowga haga cagta meelka hoosage Soomaalay darajooyin iyo dawlad baahan lahayn calan daruurta u ego dawanahan lahayn oo ciidan daafaca dalko diiran baahan lahayn dekada dajiskooda lagu daalin baahan lahayn badadaba halwacan iyo wabi dadabaahan lahayn tigtoora caruurta loo geestabaahan lahayn tigtoora caruurta loo geestabaahan lahayn rageenow nabada doonoo dagaalka dhiga oo waladahaye ilaahow dalahaladkeen inuu qalad yahay qabiil maad u qaadataan qasaara inuu howna baday maad u qaadataan inuu qarankeeni dumay maad u qaadataan qaxooti inahan ka nahay maad u qaadataan inuu kulli ina qaribay maad u qaadataan oqonka nabi muxamadu qasahbahaynu nahay inuu diintihi qaribay maad u qaadataan inuu qaarnagu qoslaa maad u qaadataan qorshuhu waa naga habaabe allohuna qabo maxamed dadwana hajiyo deeqsiyo wimaqal maxamed dadwana hajiyo deeqsiyo wimaqal waxa dagahankahan ku nool la wada ogyahay waa diiniyihiin dahacado dafacaha ku nool Soomaali danahaynayo dowladnimada rabo oo walidaha caada calankiisa unaan sinayn allow qalbigooda ka yeel daacadnimaan dhammaan aad waa mahadsan tahay hodan waad mahadsan tahay codkaaga quruxda badan maasha allah markan dhinaca haweenka ayaan weli ku guda jirnaa waxaa nala joogta hooyo Soomaaliyeed oo magaaladan aad looga yaqaano oo jaaniyada qurbo joogta ka mid ah waxa ayna maanta nagala qayb galaysaa soo dhaweynta musharaxa madaxweynenimo faadumo hiirad fadlan ila soo dhaweeya oo magaaladan ka hooyo culus faadumo fadlan ku soo dhawow fanaankeena qaaliga gabadhiisana waa salaamaya Saaro Cumar Dhoole fadlan waxaan ku leeyahay salaan qaaliga gudoon galab wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aynu markasta haddaynu reer Minnesota nahay soo dhaweynayno aqoon-yahanada sare oo u tartamaysa mas'uuliyadda dalka runtii waxa weeye waxaa la isdhihi karaa meeqa madaxweynaha tartamaysa laakiin la isma oran meeqa aqoon-yahan baynu haysanaayoo halkaa tegi karta marka anigu waxaan leeyahay maxamed soo dhawow waxaan walaalow ku faraynaa in aad aqoon-yahanka kale kolley hal nin unbaa madaxweyne noqonaya intaad isugu tagtaan in aad ku tashataan si aad dalkan u badbaadin lahaydeen sababtoo ah
aqoontaasi meelo badan bay gelaysaa nin walba waxbuu ku soo takhasusay nin walba waxbuu soo bartay qayb buu soo bartay dalka anfacaysa anigoo aada u qadariya aqoonta sababta waxa weeye meelaha layna ka soo galay baa waxaa ka mid ah aqoon la-aanta dadkeennu aqoonta lama wada gaarsiin mana ay wada baranin marka haddii maanta aqoonta la wada gaarsiin lahaa dadkoo dhan waxaashnimada gobolkeeda oo lagu kacay laguma kaceen marka hadda waxaynu higsanaynaa meel weyn inaynu gaaro adduunku 20 sano oo dhib ah waa inuu ku fiirsaday inta ina ka dhimatay marka la fiiriyo iyo inta dhaawac ah na gaaray iyo sida waqtigu u dheeraaday hadda haddii laynoo soo jeestay waxaa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado in ilaahay laga baqo in maxay ahayd ummadda tan sidii loo samata bixin lahaa la joojiyo in xanta la joojiyo waxay noqotay xanta iyo farfiiqu waxa Soomaali kala firdhiyay noqotay haddaad u fiirsatid dadku waxay isku haysto waa un xan iyo hebel baa xunay mid kale wax xunay mana uu hayo maaragtay cadayn uu la arki karo oo leeyahay waxaas ninkaasi xunay war haddii hadda la leeyahay madaxdii xabadda isu dhigtay oo inta dagaal ku jirta waxbay cuneen maxaa loogu beegay waqtigan oo kale ma hadday wax cuneenna dib loo dhigo oo la yiraahdo markii ushaani dhamaato bal ha la isla xisaabtamo laakiin saacadatan maxaa ku beegay maxay ahayd maxaa kulmiyay maxay ahayd weerta iyo maxay orgiga miyay marka waxa weeye ma naga nala ku xumaynaya ma wax dhacay baa la sheegayaa oo waxa dhacay maxaa waqtigan loo sheegay maxay ahayd ma annaga maskaxdayada la tijaabinayaa waxaan aad uga xumahay oo aad uga gelgishaa oon aad u nabcahay in nin islaam sheeganaya ilaa hadda uu wax laynayo oo wax madaxa ka goynayo oo saa wax u laynayo meeshii la rabay inayna horkacaan wanaag noo horseedaan waa la waayey ummaddu waa inay isku tashataa ummaddu cadowga mindiyo badan baa meelo badan laynoo ka soo tuntay oo meel walba laynoo ku weeraraya haddaynaan aqoon iyo aragti dheer aynaan yeelan ee midba mid farta ku fiiqo oo midba yiraahdo hebel baasaan oo kanada muxuu subiyay muxuu horta qofku waa in wixii uu taray oo uu u qabsoomayna la sheego wixii ka dhimna la sheego madax hore iyo madax dambe marka anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa maxamedow waxaan ka codsanayaa oo kale haweenka 30% bay lahaayeen sidii loo qoondeeyay in la ka badiyaa la rabay laakiin 30ka waa iska qaadanayna haddii la gol yahay marka 30kaas yaan hoos loo dhig 30ka la iska ilaaliyo waa mahadsantiin markan saaro Cumar Dhuule hooyadeed ayay ahayd Faadumo Hiirad ayadana laba kalmadood fanaankii caanka Cumar Dhuule gabadhiisii fadlan ila soo dhaweeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أنا وحن كوو دردارمي لها وتقد حبضن أيات أسي سعطايا الله كوو فضدايا هو شمانتا أد هكستينا هليي باتايا الله كوو فضدايا فنانين تو الدعاء مرمر دعاء يدا الله أقبل دمر كان كادر باحينا أنا جنا مركا دمركي عرورتنا قدي ملا أو دمركي عرورت محمد thank you فضلا موسى عجابي سودو وجورناليست وين السلام عليكم بسم الله والحمد لله marka ugu horeysa salaanta islaamka kadib oo aan u soo jeediyay ummadan halkaan isugu timi maantay waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shirkan ama kulan Soomaaliyeed weeye musharax Soomaaliyeed baynu ku soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa inaynu
limin ka gaaro ilaahay idankiisay lixdameeyadii waqtigii ay jirtay waxa weeye shaqo ma jirin aad bay u daciif u ahayd in shaqo la helo laakiin wixii la helaana waxay ahayd karaani ninkii arji soo qortoo dhan wuxuu odhan jiray karaani baan rabaa inaan noqdo ninkii gabyaaga ahaa waxaan u malaynaa inuu ahaa cali afyare inuu gabadh dheer buu ka tiriyey oo aanan halkaa ka tirin karin laakiin ereyga keliya oo ka xusuusanaya waxa weeye dowlad wada karaaniya dunidaba ma joogte ayuu yidhi laakiin haddii marka maantana waxay maraysaa heerkii way ka gudubtayoo musharaxiin maraysa 40 ayaa jooga marka dowlad wada madaxweyne ah adduunkanu ma joogto maanta aad taagan 41 madaxweyne ama iyo siyaado waa siyaado waay hase ahaatee meesha laga qaato oo ay ku habboon tahay waxa weeye haddii ay wada yihiin dad wada wanaagsan oo wada aqoon-yahana oo wanaag wada doonaya oo halaaga iyo hoogga qabsaday Soomaaliya inay doonayaan inay ka saaraan habbateen maxaa jira tirada badan ayaa tayo wanaagsan laga helaa haddii ay madaxweyne wada waayaan hawlo kale ay qaban karaan hadday wanaagsan yihiin ayaa jirta marka waxaan leeyahay ilaahay inta wanaagga iyo khayrka ka shaqaynayso oo himadu soo qaatay oo 22 sano dhawaad dhibaatada haysatay Soomaaliya oo aan laga sheekayn karin ee sheeka dhaaftay ee ceeb inoo soo jeeday oo inaynu wax lagu tilmaamaba aanay jirin aad iyo aad u xad dhaaftay waxaan rajaynaynaa inta khayrka u toostay inay dhibaatada ummadda haysata inay ka xoreeyaan oo ka dhaqaan oo ka mayraan doonaya ilaahay ha taageero ilaahay kuwa ha taageero inta doonayso dibindaabyo iyo lugooyo iyo isku delid wali iyo qabqablenimo kuwaas ilaahay ha soo hanuusho haddee waa qaldan yihiin ilaahay ha soo hanuusho oo waxaanu leenahay maantay waxaanu doonaynaa inaanu ka xorowno dhibaatada ina haysata waxaana nasiib darro ah madaxdeennii maanta oo taxsi aan baan uga xumahay uga naxay dadkeennii mas-uuliyiinta ahaa inaa la yidhaahdo waxbay farafarayeen oo maartay waxbaa hantidii la bixiyey si fiican uma gudan oo waajib dadkii shacabkii doonayay ma gaadhsiin taas waxaanu jecel lahay in la iscambaareeyo ma fiicna haddii ay yihiin nima dembigaa galana in lagu caddeeyo la tuso oo maxkamad baa caddayn kadha haddii ay yihiinna haddii iyaguna sidaa raalli ku ahdaan oo inay xidka iskaba wareejiyaan ayay ku habboon yihiin sida marka waxa weeye intaynu nool lahay damac u dayn mayno wanaag baynu rabnaa nolol baynu rabnaa nabad baynu rabnaa midnimaynu rabnaa intaas baanu doonaynaa asalaamu calaykum muuse xaaji abeesaad baad u mahadsan tahay